بسم الله الرحمن الرحيم. xubnaha golaha wasiirada bara saabka gobolka duqa magaalada xildhibaanada golaha deegaanka culimada cuqaasha salaadiinta haweenka dhalinyarada mudanayaal iyo marweyn waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. ugu horeyn anigoo ku hadlaya afka guddida dhismaha Gabiley Public Library waxaan halkan uga mahadnaqayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo suurtageliyay inaan xafladan qiimaha badan la isku nimaadno. waxa kale oo aan halkan uga mahadnaqayaa dhammaan maamulka gobolka si gaar ah duqa magaalada Gabiley oo xafladan iyo barnaamijkan aanu hirgelin laantii mahadsanid gudoomiye. mar labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan madaxda halkan fadhida ee waqtigooda iyo runtii dadaalkoodaba geliyay inay maanta taariikhdan qormaysa ee ku qormaysa gobolka Gabiley ay qayb ka noqdaan oo ay page-ka ku qormaan. dhammaantiin Ilaahay miisaad saxaan salaadka idinku dara dhammaantiin. maanta runtii waa maalin taariikhi ah oo ku suntan taariikhda waxbarashada ee gobolka Gabiley oo marxalado kala duwan soo maray. ugu horeyn haddaan in yar dul istaago waayihii waxbarasho ee gobolka uu soo maray gobolkani la socotaan waa gobolada ardayda ugu badan ama waxbarashadu ay ka tis qaaday horaantii runtii maanta waxbarashada gobolka Gabiley waxay maraysaa heer aad u wanaagsan. waxaan gobolka Gabiley ka mid ahaa waxaan gobolka Gabiley ka mid ahaa runtii goobihii waxbarashada gobolku ama dalku uu ka tis qaaday horaantii 90meedkii oo runtii aniga lafteedu aan ka mid ahaa ardaydii ugu horeysay ee gobolka Gabiley 1991kii la qoray kalaaska koowaad. run ahaantii maalintaasi iyo maanta marka la isbarbar dhigo duruufo badan oo waayaheeda leh ayuu soo maray. waxaana jirtay inaan mararka qaar lagu hamiyi jirinba in library ama meel wax lagu akhristo ay jirin, laakiin laga fikiro maxaad ku fadhiisan doontaa madaasad mise dhagax kolba ka hadliso. waana wax weyn maanta inaynu halkaa u fadhino inaynu ardaydeena iyo jiilka maanta socda aynu runtii ka caawino inay waxbarasho tayo leh helaan. waqtiga aan ka sheekeynay macalinka iyo ardayga midna mu haysan buugaag iyo textbooks waxa la yiraahdo may jirin ay runtii ay wax ka daalacan karaan, laakiin macalinku laftiisu wuxuu soo dadaal iyo juhdi ayuu halkaa ku soo gaarsiiyay. maanta dugsiyada sare ee Gabiley amaba dugsiga si gaar ah qalax la yiraahdo waa dugsiyada hormoodka oo ah dugsiyada dalka kaalmaha horena ka gala dugsiyadii lagu bilaabayna ka mid ahaa runtii form 4kii horeeyay ay galaan 96kii. haddaad eegto dugsiyada hoose dhexe si gaar ah dugsiga Sheekh Maxamed Warsame waa dugsiyada ama waa dugsiga ugu ardayda badan leh oo ay dhigtaan in ka badan 3500 oo arday oo hoose dhexe ah oo boqolaal ka midii ay sanad walba u gudbaan dugsiyada sare iyo jaamacadaha dalka. haddaba haddaan soo gunaanado runtii madax badan way fadhidaa waqtiguna uu adag yahay iyadoo laga duulayo tirada badan ee ka soo baxaysa gobolka ayaa hindisaha maktabadan hawsheeda muddo la naaqishay. waxaana la isla qaatay in maktabadan la asaaso iyadoo ujeedada guud ee loo asaasay ay tahay kobcinta garaadka iyo kor u qaadista tayada waxbarashada ee ardayda guud ahaan dalka si gaar ah ardayda gobolka Gabiley. waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa maamulka gobolka guud ahaan golaha deegaanka si gaar ah duqa magaalada maalgelinta gundhiga ah ee ay u galiyeen dhismaha maktabadan public library-ga ee Hargeysa laga asaasayo. waxa kale oo u mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada si gaar ah wasiirkeedu oo maanta inala fadhiyo iyaguna dadaalka ay ku bixiyeen in maktabadaasi ay dhisanto oo iyaguna qoonda lacageed oo ay halkan ka sheegi doonaan
horena ay ugu si xisaabtameen ay runtii geliyeen aad baad u mahadsantahay wasiir dadaalkaas waxaan dhammaan ugu baaqayaa anigoo soo gunaanadaya ganacsatada iyo dadweynaha reer Gabiley culimaadudiinta cuqaasha dhalinyarada haweenka ardayda iskuulada iyo jaamacadaha inay qaybtooda ka qaataan wax inta dhiman barnaamijkaasina laantooda aanu suurto galin inay hawshaasi qayb libaax ka qaataan si gaara gudida dhismaha loo doortay amaba uu soo xulay gudoomiyaha golaha deegaanku waxaan anigoo ku hadlay magacooda ballan qaadayna inaan barnaamijkaasi heel iyo hooba la gar istaagi doono muddo sanad gudihiina aan ballan qaadi doono in meeshaasi laga faa'iideysto oo runtii ardayda gobolku ay si fiican uga faa'iideystaan waxaan runtii aad ugu baaqayaa saxaafadda oo runtii rugniga ugu muhiimsan ee barnaamijkan aanu la'aantood hirgelaynin inay wacyigelinta iyo runtii ka qayb qaadashada barnaamijkan iyo dhiirigelintiisa ay qayb libaax ka qaataan wabillahi tawfiiq